faa'iidada tufaaxa uu leeyahay rumaantii waa wax badan. tufaaxa kow waxaa la yidhahdaa wuxuu ka mid yahay fawaakihda aada iyo aada u faafay oo dunida ugu faafay kadib markii la arkay faa'iidada badan uu leeyahay. oo faa'iidadiisa la yidhaahdaa lama koobi karo mana la tiri karo. qofkii isticmaalaane inuuba dhakhtar u baahanayna baa mararka qaar la sheegaa. tufaaxa asalkiisa wuxuu ka yimiday asalkiisii koobaad intuuna dunida ku faafin asal waxaa u lahay dalkan la yidhaha turkiya ayaa asal u lahaayeen kadib laakiin wuu faafay. faa'iidada tufaaxa haddaan bilowno waxaa la yidhahdaa tufaaxa waa boqortooyadii faytaminaadka oo waxaa ku jira fitamiinka la yihahda a oo vitamin b baa ku jira 1 b2 b5 b6 b9 iyo wax fara badanaa ku jira kalaan. waxaa kaloo la yihahdaa faa'iidada uu leeyahay markaan jirkan qaybino qaybaha jirka qaybaha jirka aan ka bilowno korka faa'iido badan ba uu leeyahay tufaaxa. faa'iidada uu leeyahay waxaa la yihahdaa markii lagu daro malab saafiya oo la ridqo kadibna la marsado jirka wuxuu u keenyaa birbir iyo iftiin cajaa'ib ah. sidoo kale waxaa la yidhahdaa qolfoofta adeega jirka saaran buu ka tirtiriyaa markii inta casir laga dhigo maxay korka la mariyo muddo 15 daqiiqa kadibna biyo qaboob looga mayro. qodobka labaad caafimaad buu u yahay tinta tufaaxa oo wuxuu caafimaad ugu yahay wuxuu adkeeyaa kobcitaanka tinta wuxuuna ka ilaaliyaa inay soo daataan timuhu waayo tufaaxu wuxuu ka shaqeeyaa isu socodka dhiigga caadiga taasoo sabab u ah markaa tintu inay kobcdo qurxoonaatane. qodobka saddexaad tufaaxu caafimaad buu u yahay ilkaha sababtuna waxay tahay tufaaxu wuxuu diliyaa bakteeriyada ilkaha suuska gala ayuu tufaaxaasuu diliyaa waa waxa u sababaan inay ilkuhu inta daxalaystaan mirraan suus galo waxaasoo dhan uu ka hortagiyaa marka bakteeriyadaasuu la dagaalayaa ciridkana caafimaad buu u keenyaa wuxuuna nadaamiyaa cholesteroolka ayuu nadaamiyaa. waxaa la yidhaha tufaaxu waa qasuul dabiiciya maqsalad oo dabiiciya waay ilkaha waxyaabaa lagu mayro dabiiciga waay taasoo ilkuhu ay u sabab naqanaya markaa inay nadiifna noqdaan iftiina noqdaan. qodobka saddexaad waxaa la yidhahdaa tufaaxa faa'iidada uu leeyahay sokorta. 3 shayba waa la sheegaa. waa tan koowaad tufaaxa wuxuu hoos u dhigaa nisbada cholesteroolka maadaama cholesteroolka hoos u dhigaya marka waa meel muhiima la yihahdaa halkaas dadka sokorta qaba. qodobka saddexaadi wuxuu adkeeyaa dheefshiidka wuxuu la dagaalamaa subagga ku jira jirka subag hadduu arkana wuu shiidaa wuu burburiyaa taasna waa muhiim labaad. tan saddexaad oo muhiimkaa waxay tahay wuxuu ka shaqeeyaa tufaaxu inuu adkeeyo dhuumaha binkiriyaaska oo hagaajiyo oo habeeyo halkaasuu qaabilsan yahay taasna waa muhiim aad bay muhiim u tahay. qodobka shanaad tufaaxu wuxuu faa'iido weyn u yahay wadnaha wuxuu faa'iido weyn u yahay wuxuu ka shaqeeyaa inuu hagaajiyo
halbowlayaasha soo gala wadnaha. halbowlayaashaas inay u shaqeeyaan sidii la rabay. maadaamay halbowlayaasha shaqeeyaan, marka qalbigu si fiican u shaqeynayaa. inaysa damage uusa taabanin, dhibaata ila taabanin ayuu ka shaqeeyaa oo bacrimiya. sidoo kale tufaaxu wuxuu ka shaqeeyaa u saacidaa inay si sax u shaqeeyaan unugyada. unug walboo jirkaada ka mid a inuu sayta u shaqeeyo ayuu sababaa. taasna waxay sabab u tahay marka inuu qalbigii wadnihii u shaqeeyo sidii loo baahnayo. arrintaasna waxaa baaritaan dheer ku sameeyey jaamacadda California oo ay tiri 2 tufaax ama 12 oo cabitaano oo tufaaxa asiirka tufaaxa ah qofkii daily isticmaala waxaa hoos u dhacaya inay ku dhacdo cudurrada wadnaha. sidoo kale waxaa la yidhahda qodobka 6 tufaaxa wuxuu faa'iido u yahay caloosha. inaysan ku shuminin, inaysan ku fadhiisanin. 2 mana ku fadhiisanayso, mana ku shubmaysid. shubana keeni mayso, oo fadhina ma jiro. maxaa u sababa? waxaa u sababaha la yidhahdaa diirka tufaaxa. diirka lagama qaado, diirkiisa lagu cunaa. diirkiisa waxaa ku jirta maado la yidhaha bactin, taasoo ay keenaysa markaas inay colooshaada ayna ku fadhiisaninin, shuban oosa kugu dhicin. idan marka isticmaalaysa cunaysid diirka ha ka qaadin. qodobka 7 haddaan soo boobsiiyo, tufaaxu faa'iido ayuu leeyahay mindhicirada. waayo wuxuu ka shaqeeyaa inuu adkeeyo dheefshiidka. dheefshiidka haddii la adkeeyo, cuntadii la shiiday shaqadii laga rabay waa halaas. mindhicirada marka waxay noqonayaan kuwa marka faa'iido u leh. qodobka 8 miisaanka ayuu dhimaa. waayo tufaax wuxuu ka shaqeeyaa inuu nuugiyo ama dhuuqiyo subga ku jira jirka. qofka waxa buurtaanka u keena waxaa marka subga ku jira. subga haddii laga dhuuqay qofkii waa dhuubanayaa. qodobka 9 lafaha ayuu adkeeyaa. waayo waxaa ku jira la yihahdaa calcium. maanta aan ka raadsano anaga caanaha iyo jeeska aan ka raadsano, tufaaxa ku jiraa. calcium haddaa heshida marka qofkii hadduu helo, macruurta hadday helaan awood lafaha ayay helayaan. sidoo kale qodobka 10 wuxuu difaaciyaa kaa reebiyaa TB-da. arrintaasna waxaa baaritaan dheer u galay jaamacadda ku taal Ingiriiska. maalinkii 2 ama 5 isbuuci 2 ama 5 qofki isticmaala wuxuu ka reebaa u diidiyaa inay ku dhacdo qofkaas TB-da. inaasaan kusoo gabagabahaynaa. waxaa kaloo noo dhiman farqiga u dhexeeya tufaaxa cas oo guduudan iyo tufaaxa cagaarka ah. farqiga u dhexeeya waa mawduucayna kale insha allah.